السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلانتو عن داوده كسو دwow قيبتي شناد تبركة صحافة قيبتان وقيبتي ugu dambeysay habka qaadida wareysiyada hadii aad ku cusub tahay channelkan fadlan subscribe deh furo kadibna alertka si mar walba uu kugu soo dhaco cashradan hadii la yiraahdo qaybteenan waxay ku saabsan tahay oo gabagabo u tahay sanad hore ugu sheegay wareysiga maanta waxa ila jooga oo barnaamijka la daadihinaya معلن سري صاحبكي سعيد حاجة أفرح. السلام عليكم. وعليكم السلام مات. أنت صاحب. ما شاء الله. ونكون فرح سنة إنه صاحبكي ما أنت قصو دوي عشرة دي وبحين جري كسب سنة صحافة ده. قيبتها وقيبتي شنات. وقيبتي شنات. أفر قيبة يكوري سمحانو من واي. اللي هو صاحبكي وانا وضع شقينا وضد كله بيننا. مشغول. ماي. تيمتا وين كمان أنا جيم برون كمان تيمها دي سمي تيمها وين تضبطنات واي هاي 10 كاينو بلابانينا سيده لوgu bilaaba wareysiga maxaa lagu xuushaa habka wareysiga lagu bilaabay maado ma hasan tahay marka hore intaadan qofka dooran oo aad wareysan lahayd waxa haboon inaad doorato mawduuci aad ka warrami lahayd mawduuca ayaa number 1 ah hadaba mawduuca maxaa ka sii horeeya موضوع waxa ka sii horeeya adiga inaad wax ka taqaano mawduuca oo aad garanaysid hadii laakiin aad dhahdo qofan wareysanaya mawduucaasan ka wareysanayo adigu aqoon u lahayn haduu ku jawaabay sidoo ku aqoonsanaysa waxan ma saxsan yihiin ma qaldiin maxaad xog haysaa marka ugu horeyso waxa la dooranaya mawduucan waa mawduuc adigu taqaano oo xog ka hayso marka kadib ayaa la dooranaya qofkii aad wareysan lahayd maskaxda ku hay markasta wareysiga marka aad cid u xulanaysid xulashada mawduuca ayaa ka horeysa xulashada qofka sidoo kale waxa samaysanaysa mawduucaas markaad rabto inaad ka hadasho waxaad qoranaysaa ama aad list gareynaysaa ama aad qoranaysaa mawduucaas inta qodob uu yahay ayaad qoranaysaa oo aad diyaarsanaysaa oo leedahay qodobkan muxuu noqon doonaa ka muxuu yahay ka haduu yimaado waa list gareysanaysaa haduu ugu qofka wali looma tagin tusaale ahaan hadii aad rabtid inaad cid ka wareysatid xanuunka macaanka oo kale maxaa macaanka keena su'aalaha hoos imaan kara yaa way cid uu ku dhaco waa maxay waxyaabaha looga hortagi karo waa maxay waxyaabaha lagu daweeyo mawduucyadaas iyo su'aalaha hoos imaanaya ayaa diyaarsanaysaa marka koowaad waxa kaloo muhiim ah iyadoo inay jirto sabab aad u qaadayso mawduucan aad ugu waramayso inay jirto oo baahi bulshada wax u taagan inay tahay hadii laakiin ayna jirin wax baahiyo mawduuca laga hadlo ama wax bulshada wax ku soo kordhinaya ogo wali waxaad u baahan tahay inaad ka fikirto waxyaalaha muhiimka ama aasaaska u ah mawduucaas aad ka waramaysid ee bulshada la xiriira marka aad list gareystid mawduucyada haddana waxaad sidoo kale list gareysataa dadka ka hadli kara mawduucaas waa imise ruux cidda dadka aad ka wareysan kartid mawduucaas waa tahay qodobkii waad soo heshay mawduucii waad soo heshay wixii dhan waad soo diyaarsatay adigu aqoon baad xog baad ka soo wareysatay haddaba maxaa muhiim marka intaad joogto aad la wareystaa u tagin inaad doorato goobtii marka aad goobta dooranaysid ka fikir goobta ku haboon mawduucan ee xiriirka la leh haddii tusaale ahaan aad ka hadlaysid ciyaaro oo aad wareysanaysid qof ciyaartooy ah ku wareyso goob ay ka muuqdaan ciyaarihii sidoo kale haddii aad wareysanaysid qof suuq jooga oo aad ganacsi ka wareysanaysid ku wareyso goobtaas uu joogo ee suuqa ah ee laga dareemayo codadka dabiiciga ah maxay muhiim u tahay hadaba in aad qofkii mawduucii iyo goobtii islaha aad ku wareysanaysid waa maxay sababta ay muhiim u tahay marka lama had sababta oo ah waxay dadka daawanaya ama dhageysanaya helayaan sharqan ama cod ka turjumaya waxa qofkani uu ka hadlayo midda kale waxa ay muujinaysaa oo ay tusaale u tahay in qofkan aad wareysanaysid uu xiriir la leeyahay waxan aad ka wareysanaysid haddii aad wareysanaysid qof ciyaartooy ah oo aad ku wareysatid studio ma hubno qofkan inuu ciyaaro mana hubno laakiin garoonkaas uu joogo ee ciyaaraha dhinaciisa dambe ka socda ee aanu TV-ga ka daawano macna ayay kordhinaysaa waa sida uu sheegay muhiim weeyaan in wax walba wixii marqaatiga uu ahaa waxyaalaha la yiraahdo natural sound ama codka dabiiciga ah ee goobaha habda lagu wareysanayo inaad soo heshaa mid kalena ogow haddii dhawaaqa baxaya uu ka xoog badan yahay wareysiga aad qaadayso adigu oo dadku ay ka mashquuliyaan qodob dhawaaqaas baxaya waxay dhibaato ku tahay wareysigaaga dhibaato ku tahay
marka ka fakar dooro goobta ugu muhiimsan ee ugu fiican ee codkan iyo qofkanba aad ku heli karaysid laakiin san ka badan dhawaaqa dambe ee baxaya adigoo raadinaya muhiimadaadii natural soundkii in uu ka qaato codadkii dadka wixii muhiimka ku ahaa xiriir ayaa ka dhaxeeya xulashada mawduuca xulashada qofka iyo xulashada goobta haddaba sidee ayay tahay dadka la wareysanayo sidee loo qaabilaa adigu maxaa waajib kugu ah dadka aad wareysanaysidna ma yihiin nuuci adiga aad wareysanaysid haddaba habka qaabilaadu wareysigu waa sidee marka aad rabtid inaad cid wareysato marka koowaad diyaarso qalabkaaga oo ha u tagin qofka markaad wareysiga ka qaadaysid iyadoo kaamiradaadii rikoorkaagii ama qalabkii aad wareysiga ku qaadaysay uusan kuu dhammaystirnayn ama uu kaa kala dhiman yahay diyaari habka labiskaaga oo ha u tagin qofka adiga oo kala jeeda ama sidii asaaka kusoo kacday ah waxaa muhiima haddana inaad ka fikirto qofka la wareystaha nooca aad u wareysanaysid muxuu yahay haddaad u tagto hooyo xalay ilmaheedii qadeen buush ku jirta roob ku da-ay dhiiqadii iyo wixii qashin meesha yaallo sideed u wareysanaysaa ma adigoo sidan isxarakaynaya oo caagadii watarkeeda biyaha wata oo yacni iska dhigaya qof xog dooni war raba haddana iska ilaalinaya meesha taasi waa ka mamnuuc la wareystaha in uu kaa dareema haddaba maxaa loo baahan markaas inaad u tagto deegaanka ay ku sugan yihiin qofka dadka iyo xaaladda ay ku sugan yihiin dadka la matala oo haddii aad dadkaas uu Saciid sheegay aad wareysanaysid la fariiso halka ay fadhiyaan cawda ama dirinta ay ku fadhiyaan kula fariiso meesha ay joogaan ku wareyso qaabka ay u nool yihiinna u labiso macnuhu ma aha dhar jeexjeexan qaado laakiin ha ka badbadin sidoo kalena haddii aad wareysanaysid qof naafo ah ama dadka lugaha naafada ka ah oo kale oo uu qofkaas ku fadhiyo baaskiilka lagu socdo ee socodka caawiya adiga oo taagan ha qabsan rikoorkaagii iyo mikrofoonkaagii kadibna dusha ha kaga imaan ee u jilba jabso u muuji qofkaasi aad wax ka qaadayso wareysiga aad ka qaad hadba sida uu yahay hadduu xafiis fadhiyo qaabku u fadhiyo ula fariiso hadduu barakac yahay qaabku u fadhiyo ula fariiso hadduu naafo yahay qaabku yahay ula fariiso taasi waa waajibaadkaaga waa doorkaaga saxafinimo ama suxufinimo ee aad bulshada wakiil ugu tahay taas weeyaan maskaxda ku hay haddii aad tahay qof dumar ah oo qaadaysa wareysi inaad ka fikirtid habka labiskaaga iyo sida aad dadka ku qaabilaysid waxaa aan wanaagsanayn gabadhu inay xirato dhagadhago waaweyn mic up soo samaysato timaha hadba dhinac usoo xidhata ee wixii lagu sii duubi lahay kala dusha kusii xirto halkan ay jijimo soo gashato iyadoo dhan dee oo shalab leh aroos ma u socotaa in adeer may waxaad u socotaa shaqadaada ka run sheeg taasi waxay u keenaysaa qofka la wareystaha ah yacni wuxuu sawiranayaa xogta aad u socoto waxaan ahayna imanaya meesha aad baad u mahadsan tahay Saciid qaybtii shanaad ee casharka tababarka saxaafadda ee maanta intaas ayuu ku egyahay waxaan waa isku day aan doonayno dadkeen wax ka faa'iidaan insha Allah ta'ala haddii aad hayso talo ama tusaalena mar walba soo dhaweynana la soco mar kasta qaybaha kale ee soo socda haddii aad ku cusub tahay page-kan subscribe deh furo alertka si mar walba kugu soo dhaco haddii aad haysid wax su'aala ama wax tala ah waxaad noogu reebi kartaa commentiga hoose ama emailka xagga dambe aan ku tusi doono ayaad nagu la wadaagi kartaa mahadsan